mid ay leedahay dhalinyaranimada. Dad fara badan ayaa maanta ogeyn muhiimadda ay leedahay dhalinyaranimada. Dhalinyaranimada waa waqtiga ugu fiican qofka looga baahan yahay inuu ku dadaalo cibaadada Ilaahay subhanahu wa ta'ala. Rasuulka sallallahu alayhi wasallam aad ayuu u amaanay dadka dhallinyaranimadooda ku dadaala cibaadada Ilaahay subhanahu wa ta'ala. Waxay kamid yihiin dadka loo raranayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala arshigiisa. Waxaad dareemi kartiin muhiimadda ay leedahay dhalinyaranimada. Qofka markuu yahay qof dhalinyaro ah waxaa laga rabaa inuu ku dadaalo cibaadada Ilaahay subhanahu wa ta'ala. Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Insa iyo jinna aniga wax kale uma abuurin balse Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay waxaan u abuuray oo kaliya inay aniga i caabudaan. Dhalinyaranimada waxay leedahay fursad aad qaali u ah. Qofka dhalinyarada ah waxaa laga rabaa inuu aad ugu dadaalo horumarinta naftiisa. Qofka dhalinyarada ah waxaa laga rabaa inuu mar waliba ogaado muhiimadda ay leedahay dhalinyaranimada. Maalin waxaa la gaari doona aadan istaagi karin. Maalin waxaa la gaari doona aadan wax waliba aad samaysan karin. Anta aan la gaarin maalintaas waxaa laga rabaa inaad maanta naftaada xisaabisid. Umar bin Khattab radiyallahu anhu waxa uu yiri xaasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Wardadow naftiina xisaabiya inta aan la idin xisaabinin. Intaadan Ilaahay subhanahu wa ta'ala hortiisa aadan tagin waa inaad maanta is xisaabisaa. Waa inaad naftaada maanta miisaan saartaa. Dhalinyaranimada waa fursad aad qaali ah. Dad fara badan ayaa maanta ka faa'iideysanaya dhallinyaranimadooda. Waqtigooda intooda badan waxay ku bixiyaan daawashada TikTok iyo waxyaabaha maalayacniga ah. Waa khasaare aad u weyn. Qofku waxaa laga rabaa markuu dhalinyarada uu yahay waa inuu inta badan dhageystaa Quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala. Waa inuu inta badan u bartaa ahadiis Nabiga sallallahu alayhi wasallam. Maadooyinka kale ee faa'iidada u leh sida xirfadaha iyo wixii la halmaalo qofku waa inuu bartaa intuu daawo lahaa TikTok iyo waxyaabo aan waxba laga faa'iideyn. Qofka hadduu dhalinyaranimadiisa aad ugu faa'iideysta bari markuu weynaado wuxuu ku noolaanayaa nolol aad u weyn. Walaalayaal waxaan iska rabaa inuu maanta ka faa'iideysano waqtigeena. Waqtigu waa shay aad qaali u ah. Ashaabta Rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxay dhihi jireen al waqtu ashaddu min al mawt. Waqtigu wuxuu ka daran yahay geera. Qofku waxaa la rabaa inuu waqtigiisa aad u ilaaliyo. Qofka haddii ku guuleysto inuu waqtigiisa maareeyo noloshiisana waa maareyn karaa balse qofka haddii uusan ka guuleysanin waqtigiisa uu maareeyo way ku adkaanaysaa inuu noloshiisa maareeyo. Ugu dambeyntii waxaan idin leeyahay dhalinyaranimada waa fursad aad qaali u ah. Qofkan waxay soo martaa hal mar oo kaliya. Haddii halkaas mar aadan ka faa'iideysanin weligaada kuma soo laaban doonto. Waxaan rajaynayaa wixii maanta ka dambeeyo inaad